waxaana wanaagsan waa barnaamij gaaban aan uga hadlayo waxa loogu yeero VPN ama Virtual Private Network oo ah connection qofka uu isticmaalayo marka uu online-ka ama computerkiisa ama aaladiisa uu isticmaalayo. mawduucan ayaa dad badan iga soo codsadeen inaan ka yara bixiyo tafaasiil gaaban maadaama aan ku jirno waqti pandemic ah ay dadkii aqlada aad ay u joogaan ay aadna u isticmaalayaan internetkii waayo waxaa jira dad fara badan oo aanan aqoon xitaa kombiyuutaradooda inay ku jiraan antivirus software antivirus ah ama isticmaal aadan uusan u aqoon internetkan iyo wuxuu ku saabsan yahay laga yaabaa un just in u garanayaan internetkan in ay wax laga daawado oo social media laga galo dad lagala hadlo oo kaliya laakiin intaa waa ka ballaaran yahay mawduucyo fara badan ayuu kula galayaa haddana waxaan aqoon u lahayn marka waxaan rabaa inaan yara istaago internet sir ah ama connection sir ah ama connection aan la arkin oo qarsoon sida ka aragtaan hadda shaashada dadka badanaa Soomaalidu sidii u badan yihiin boqolkiiba 80 saan qiyaasayo ma yaqaanaan aqoonna uma laha siday xogahooda internetka markay isticmaalayaan ay u ilaalin karaan waayo waxaa dhici karta dad fara badan inaan kombiyuutaradooda ama aaladahooda aysan ku jirin waxa loogu yeero antivirus oo maxay ahayd tolay ka kombiyuutarkaaga ka ilaalinaya fayrasyada iyo attack hackerka marka dadka badan waxay u badan yihiin inay social media ka isticmaalaan wax ka daawadaan wax ka dhageystaan laakiin internetku intaa waa ka ballaaran yahay marka qof walbana xaq wuxuu u leeyahay waxa uu isticmaalayo inay si gaar ah ay u noqdaan qarsoodiya maaha dad kale inay ka warhayaan xogtaada iyo sirtaada iyo waxaad qabato iyo waxaad la sheegaysato muxuu ahaa waxaad ka dhex iibsanayso waxaasoo dhan maaha in dad gaara ay iska haystaan ama ay kula socdaan xogtaada dhan ay record garaysanayaan laakiin adiguna waxba aysan koobay marka saad hadda ka aragtaan muuqaalka aan shaashada soo dhigay wuxuu tilmaamayaa connectionkii caadiga ahaa aada isticmaalaysay oo caadiya laakiin kan kalena waad arkaysaa waa virtual private and secure canal ama tunnel saa doonta u qaado marka inaad qofkii oo isticmaalo marka sidan hore waa u sheegay yacni connection kana waxa weeye waa sida tunnelka oo kale ama waddo dhulka hoostiisa oo kale aad marayso oo connectionkaagu ka baxayo oo aad ka soo baxayso meel kale marka laakiin haddaad connectionkan caadiga aad isticmaalayso waxaa kaa warhaya kambanigan internetka aad kasoo kirisatay ayaa xogtaadoo dhan la socda online banking ayuu la socdaa biilashaad bishii bixiso ayuu la socdaa waxaad online ka iibiso dhan buu ogyahay baaswoodhadaada dhan buu hayaa emailadaadu hayaa dadka emailada u dirtay waxa kuu soo dhaco dhan bay ogyihiin wax kasta oo aad internetka aad ka isticmaasho social mediahaagii maxay ahayd tolay wax kasta aad meeshan aad ka isticmaasho ayay la socdaan wayna kaysanayaan waana heshiis u dhaxeeya iyaga iyo dawladda heshiis u dhaxeeya iyaga iyo dawladda weeye inay kaydiyaan ay waxay ku bogi waayaanna ay dawladda u wareejiyaan marka qof walbaba xaq wuxuu leeyahay isticmaalkiisa xogtiisa gaarka ah maxay ahayd tolay privacygiisa inay wixiisa gaar u noqdaan ayaad xaq u leedahay maaha in qof kale waxa oo dhan uu iska ogaado marka barnaamijkan waxaad kaga badbaadaysaa howlaha noocaas oo kale ah inaad waxaagii ay noqdaan wax secret oo dee adig ku gaara waayo qofna ma jecla in laga warhayo oo maxay ahayd tolay dad kale ay maxay ahayd tolay mushahar lagu siiyo in adiga kaliya ku eegaan waxaad qabato habeenii maalin oo weliba
iyo night shift bay kala galaan muddo hadda aan ka hadlayo habeenkiina qaar baa ku jira maalintiina qaar baa ku jira oo daawanayo shaqo kale aan lahayn shaqadoodu ay tahay waxaad internetka aad ka samayso inay eegaan habeen iyo maalin marka VPN kan marka waxaa jira company aad u fara badan iyaga qudhadoodu waa kiro oo maxay ahayd hoolay kira ayaa la bixiyaa inkastoo dee maxay ahayd hoolay kala wanaagsan yihiin servicekoodii adeegooda ay kala wanaagsan yihiin marka badanaa siday u badan yihiin waxay sameynayaan waxa loogu yeero military encrypt oo ah connectionka iyaguna militariga ay isticmaalaan inaan la soo geli karin waayo badanaa markaad wax VPN-ku wuxuu wanaagsan yahay markaad waxyaalaha personalka aad isticmaalayso sida emailka biilasha aad bixinayso online bankiga waxyaalahan oo dhan markaad isticmaalayso ama email ama social mediaha waxa adig ku gaarka ah oo dhan waxaa ku wanaagsan inaad VPN-kan connection-kaagu aad ku jirto markaad waxaan aad isticmaalayso laakiin markaad wax daawanayso iyo markaad wax soo downloadayso kale dabcan connection-ku wuxuu noqonayaa uu daciifayaa oo way speedka hadda aad isticmaalayso uu ka sii yaraanaya waayo waxa laga yaabaa computer ama server meel fog yaala inaad la noqoto connected marka connection-kaaga markaa waa daciifayaa marka wax daawanayso ama Netflix-ka ama waxyaalahan website-yadan aflaanta la geliyo oo kale ama waxa soo downloadayso faylal culus dad soo downloadayso markaa connection-kaaga caadiga inaad ku noqoto ayaa wanaagsan marka iyaga qudhadooda dan eegna xitaa kuwa ugu wanaagsan mid iyo laba haddaan ka eegno waanay jiraan qaar bilaasha laakiin waxaan eegaynaa hadda tusaale ahaan waxaan eegaynaa company badan baa jira oo nin walba price gaara oo kuu sheegayo service kuu qabanayo marka hadda tusaale ahaan kan wuxuu leeyahay 10ka ugu daran yani ugu wanaagsan VPN-ka ayuu kuu sheegaya kan kale tusaale ahaan kan wada arkaysaa waa Express VPN Cyber Ghost Prophet Surfshark Ivy Vanish Hotspot Shell NordVPN okay marka way badan yihiin kambaniyada aad maxay ahayd toolay aad bay u badan yihiin sidaan aan hadda halkan ka aragnay shaashada marka anigu sir baan ku hayaa oo ah kambaniyadan oo dhan horta company markuu ka shaqeynayo wadan license baa la siiyaa license-ka na ma jebin karo sharci iyo agreement iyo contract baa la siinayaa okay marka sida halkan aan ka aragno wuxuu list buu ku siinayaa muxuu ahaa VPN-ka aad isticmaalayso laakiin waxaa jira sharci baa jira markii kambaniyadan la siinayo license contract bay galayaan la galayaan dawladda inaysan jebin karin marka qof kasta oo new member soo gala kambaniyadan si toos ah waxay ugu gudbinayaan macluumaadkaaga iyo kaarka payment-ga aad ka siinayso si toos ah dawladda ugu gudbinayaan laakiin mid baa jirta kaasoo ah waa kan waa NordVPN kuma yaalo North America iyo Europe kuma yaalo wuxuu ku yaala wadan la yiraahdo Panama okay marka Panama malaha sharci malaha in
in maxay ahayd tolay kambaniyada privateka ah ee internetka dadka siiya inay dowladda hoos tagaan sharciga ma laha. marka waxaa kaloo jira wax loogu yeedho 5 eyes ama 5 indhood oo ah halkan aan idinka tuso wakan 5 eyes waa kan haddaad u fiirsato 5 eyes waa 5 wadan waxaa ugu horeeya arkaysa waa Australia, Canada, New Zealand, United Kingdom iyo United States. marka 5tan wadan waxay midoobeen dagaalkii labaad ee adduunka. haddaan idiin soo koobo macluumaadka halkan ku qoran in maxay ahayd hoolay ay share gareeyeen daatada ama surveillance waxay ugu yeedhaan daatada. marka daatada waa maxay? waa daatada 5ta wadan dadkii ku nool oo dhan ayay xogahaas oo dhan bay ay share gareynayaan. marka NordVPN wuxuu ku yaalaa wadanka la yiraahdo Panama. marka maxay ahayd wax data retention ma laha. data retention law waad arkaysaa does not participate in the 5 eyes or 14 eyes alliances. marka waad arkaysaa marka kambanigan ayaa loogu qaatay inaad ka isticmaasho ama ka extract ama ka macaamil la noqoto. waa macluumaadkan halkan ku arko weeye. uma xayisiinayo, xayisiisna uma sameynayo, laakiin markaan isku wada eegay kulligood aad la gasho maxay ahayd tolay subscribe aad u noqoto way ku gudbinayaan oo fiiro gaara ayaa lagu yeelanayaa sababta aad u isticmaalayso VPN-ka waa maxay aad isku qarnayso. saan hore u sheegnay qof walba xaq buu u leeyahay in wixiisa ay si gaara ay u noqdaan oo xaq baad u leedahay. marka waad arkaysaa kambanigan wuxuu ku yaalaa Panama. wax sharcina uma yaalo Panama in dadka la wiideeyo. halkaas u dhigaa fiican af Soomaaliga waa fara badan yahay in dadka la eego waxay isticmaalayaan ama la record gareeyo. sharci wadanka uma yaalo. marka kambaniga kaliya ee VPN-ka laga isticmaali karo waxaana record aan ku sameynayn waa kambanigan la yiraahdo NordVPN. marka adna waad eegi kartaa, waad baari kartaa, research waad sameyn kartaa, wixina waad ogaan kartaa. waxa dhan waxay ku jiraan online-ka. waxaan waan jeefkay ka keenay maaha. marka qof walba waa ogaan karaa. marka waxa waliba laga yaabaa macluumaad intan ka sii badan inaad hesho haddaad isku taxalluujiso aad baaro. waayo Soomaalidu badana waxna ma akhriyaan, waa dad iska ordoon. marka haddaad wax akhrido xog aad u fara badan oo kaa qarsooneed ayaad ka dhex helaysaa internet-kan. marka kambanigana loogu qaatay kuwan kale waa 5 eyes iyo 14 eyes wuxuun baad ku daawanayo waxaaga sheergaleynaya xogtaada la iska haysanaya 10 sano dambe. I don't know waxay ku falayaan, laakiin xog aad u fara badan oo meeshan ku jirta. marka intaasaan idinku soo koobaya barnaamijkii ana uga hadlayay VPN-ka. dhalinyaro fara badan oo aad u xiiseynaysa waxaan ayaa iga soo codsaday. marka su'aalo badan ay iga weydiiyeen. marka qof walba intaan si gaara uga jawaabi lahaa waxaa la qaatay inaan hal video aan xogta usoo yaro ururiyo saan hadda aan u duubay aan usoo duubo. marka maxay ahayd hoolay kan isticmaala oo markaad waxay leeyihiin gaarka aad isticmaalaysaan gala. waxa kaloo jirta uu leeyahay service aadaan uga helay aan soo sheeka dhaafay. service kaas oo ah leak male leaking male hadda kulligood waxay leeyihiin markay isxaysiinayaan leaking ma jiro. marka leaking waxa weeye ingiriisi marka leak waa wax da'a tif yiraahda, laakiin iyagu waxay ka wadaan VPN-ka markaad ku jirto connection-ka
wuu go'aa hal mar buu kaf oranaya markuu go'o haddana connection waxa kadib uu galaya markaad connectionkaaga hal mar uu go'o macluumaadkaaga waa laga yaabaa inuu da'o oo markaa uu kambanigii ay arkaan marka kan VPN-kan iyo qaar kaleba waxay leeyihiin hadduu connectionka go'o xitaa macluumaadkaaga leak ma noqonayo lama arkayo oo kambanigii kuma dul da'ayo no user logs or no IP address leaks maragta marka kambaniga leakska uu ku da'ayaa marka way ku arkayaan si aad connectionkaada ugu jirto adigoo online bankigaagii iyo ama waxa biilashaada bixinaysa adigoo ku dhex jira ayaa hal mar uu kaa tegaya connectionkii waxaaga dhan waa la arkaya marka hadda kulligood hadda waxay leeyihiin waa kaas oo leeyahay no IP leaks maragta kulli way leeyihiin laakiin I don't know maan isticmaalin kulligood aniga laakiin waan arkaya inay isku xaysiinayaan IP leaks inaysan ku jirin service-kooda oo hadduu connection kaa go'o aad waxaaga encrypted military encrypted bay yiraahdaan oo ahaanaya waxaaga yani secure ahaanaya marka adigu eeg baala laakiin kambanigaas hadda aan arkaa laga yaabo mid qaar badan oo kale inaad aragtaan oo sharciyada noocaasa dadka xorriyad siinaya in maxay ahayd hooy aad aragtaan ama aad soo heshaan haddaad baadhaan wixii aad baan idin salaamayaa waana mahadsantihiin emailka shaashada ku qoran igu soo dira wixii aan ka tegay ama wixii aad u baahantihiin si gaara inaan kaaga jawaabo aadna wada mahadsantihiin